bisha barakaysan ee Ramadaan wuxuu Ilaahay ku dhax qariyay oo ku jirta habeen la yiraahdo Laylatul Qadr habeenka sharafta badnaa habeenada Ilaahay ayaa iskale waxay sharafta ku mutaystaan dhacdooyinka habeenada ku soo hagaaga ama ku soo aada habeenka Laylatul Qadrka waxa ku soo aaday xilligii la soo qaaday kitaabka Quraanka ah looxul mahfuudka laga soo qaaday oo loo soo diyaarinayay in Nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu soo dejiyo habeenkaas asaga ah wuxuu noqday habeen sharaf badan oo Ilaahay uu yiri inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alf shahr yani habeenkaas ayaa Quraanka la soo dejiyay laylatul qadr kala yiraahdo oo sharafta badan laylatul qadrna waxay ka khayr badan tahay kun bilood oo hadii loo rogo sanad noqonaysa 83 sano iyo 4 bilood marka munaasabad aad u qiimo badan ayaa meesha ah waa xaflad weyn oo habeenkaasi malaa'ikta Ilaahay ay dhulka imaanayaan tanazzalu malaa'ikatu war-ruuhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta madla'il fajr habeenkaas waa habeenka laylatul qadrka ah ummadan ayaa Ilaahay wuxuu ugu talagalay inay ka faa'iideystaan si ummadihi ka cimriga dheeraa ee ka horeeyay ay u soo gaaraan oo ummada waxa jiri jiray yaani 1000 sano ku dhawaad noolaan jiray ummadeena cimrigeedu uu gaaban yahay oo 60 sano ilaa 70 sano ilaa 100 sano ba iska dhe in ka yar ayaa lagu dhintaa marka ummadan cimrigeeda saa u gaaban yahay ummadahaas 1000 sano wax ku dhow jooga cibaado iyo hadii hala tartamo iyo abaal hala isa siiyo iyo hadii sidaas loo daayo ma gaarayaan ummadana waa ummad khayr badan oo Ilaahay uu yiri kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas si marka ummadahaas kale looga daba tago Ilaahay wuxuu inoo saalay habeenka Laylatul Qadrka ah bisha Ramadaan ayaa la dhaxgeliyay lama sheegin habeenka ay toos u tahay tobanka dambe ayaa loo rijib badan yahay inay ku jirto waliba kuwa habeenada isdhaafka ah laakiin hadana habeen go'an oo hadda si toos loo ogyahay ma jirto xigmada loo qariyay waxay tahay maadaama bishiiba iska kooban tahay oo Ilaahay yiri ayaaman macduudaad bisho dhan inaan ka dhaxraadino oo dadaalka aan badino nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo dadaal badnaa ayuu hadana ramadaanka wuxuu u dadaali jiray suuna u dadaalin bilaha kale hadana wuxuu aad u sii dadaali jiray oo ka badan intuu dadaali jiray tobanka dambe ee bisha ramadaanka العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر كان هكا يقول تلمام إنه كجرو أو تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كر هذه أما كد دالة ليلة القدر كتوان كدم بش رمضان كع مركز هذين تأسي ما دام بشي بقى إسكا كوبان تاي هدي لجوه الدلالة قفك وهلا يا ليلة القدر كع قفك ليلة القدر وافجينا هل كان سنة ليلة القدر كوهلي عمري سوح ولا كان يا سديتني يصدح سنة يعفر بلاد مركوا هل سنة أوكليا هذه السنة الله صار في ليلة القدر إلهي وافجي أما سنة كلا أوصين ولا إلهي ليلة القدر هو وافجيه كم الناس سنة إنه جارو حق عمرك أو خيرك عملك وناكسنة وسميس يعني عكرته لكن وقفك كفى إذا dareemana habeenkaas ahmiyada uu leeyahay oo soonka oo dhan maalinkan uu sooman yahay habeenkiina duco iyo quraan akhris iyo qiyaamul leyl iyo taraawiixdi ayuu ka qayb qaadanaya qofkii sidaas isku sameeya laylatul qadrki waxa la hubaa inuu haleelayo ama helayo ilaahina inuu ka aqbalo ayaan u rajaynaynaa oo uga baryaynaa marka laylatul qadrka waa fursad bisha ramadaan ilaahay inoo dhaxgeliyay bisha kale ee soo socota kuma jirto bishii la soo dhaafayna kuma jirto halkaan bil ayay ku dhex jirtaa qofkii marka bishan ramadaan ilaahay uu gaarsiiyay waa fursadii laylatul qadrka intuu ku raadiyo oo cimrigiisa ku dheeraysan lahaa qof walba marka ku talagal ama ku dadaal sidii aad laylatul qadrkaas u raadin lahayd waxaana lagu raadin karaa oo lagu heli karaa habeenada dhan in la dadaalo hadii habeenkaas la dadaalo ma fakanayso ilaa habeenada kamid ah baa laylatul qadrki ah habeenkaas oo joogna waa inaan ku talagalno oo niyeysano caawa inuu habeen laylatul qadrki yahay habeenka ku xiga hadana inuu caawa laylatul qadrki yahay soonka oo dhan inaan laylatul qadr ka wada dhigno ayaa loo baahan yahay si habeenka laylatul qadrka aanu waafaqno oo san uga fakanin ilaahay hayna waafajiyo laylatul qadrka kuwi ka faa'iideystayna ilaahay hayna ga dhigo wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh